salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegnay qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreede waxaa ugu dooro beelaha ugaadhyahaan oo ganafka ku dhuftay in la laayo maxaabiista ku xidhan laascaano ninkii qabtay faysal cabdi boqotaan oo isu soo dhiibay reer qulugud iyo duulkii qurjiile oo ku jira habka gaagiyaad baqaar yimi xasan sheekh oo looga gacan haadiyey midowda afrika golihii deegaanka berbere oo doortay duq iyo ku-xigeen laxosa boqor buur mudow oo suldaan cadde guda ka saaray afka mira gadaca dalkii labaad ee aqoonsan lahaa somalilan oo dhabbaha ku soo jira iyo weliba xildhibaano warsangeli ah oo ku dhawaaqay inay ka soo goosteen maamulka firdhiye wararkaasi iyo wararka oo dheeraada ayaan idin haynaa ee ku soo dhowaada farxadle ma ogtahay in jannadaadu ay ku jirto samafalka waalidka haddaba shirkadda almustaqbal ee xajka iyo cumrada ayaa kuu samaysay qiimo dhimisaadu ballaadhan oo ku saabsan ka cumraynta waalidiinta dhintay ama daada shirkaddu waxay kuugu cumraynaysaa waalidkaaga $180 oo keliya waxaana laguu soo duubayaa fideoyo caddaynaya gudashada cumrada shahaadooyin rasmi ah iyo biyo samsama sidoo kale haddii aad adigu u socoto cumrada shirkaddu waxay kuu diyaarisay culimo kaa caawisa gudashada cumrada soo saarista fiisaha iyo dhammaanba adeegyada safarka kala xidhiidh lambaradan wararka naga soo gaadhaya magaalada ardis ababa ee xarunta midowda afrika ayaa sheegaya in dhowaan halkaasi laga wixi doono madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba wasiirkiisa arrimaha dibadda sida wararku sheegayaan xasan sheekh maxamuud iyo wasiirkiisa ayaa lagu wargeliyey inay hor yimaadaan golaha midowda afrika si loogu dhiibo go'aanka madambaysa oo ay soo sargooyeen golahaasi waxaa la biniixinayaa inuu go'aankaasi yahay sidii ciidamada midowda afrika ee gudaha soomaaliya u jooga nabad ilaalinta looga daadgurayn lahaa meelaha ay rundudaan ama ay gabalaaxaan islamarkaana loogu celin lahaa dalalkii ay ka soo kici timeen amase ay markii hore ka soo andadaaheen ururka midowda afrika ayaa tallaabadaasi u cuskaday inay haatan haysato soomaaliya ciidamo ku filan maadaama oo dharaar kastaba la arkaya guyaashii u dambeeyey dhibbo soo dhogorgooyey oo soo gaadhaya gudaha soomaaliya kuwaasoo ay xilis ka saareen dalal shisheeye oo soomaaliya la jaala waxaa la tibaaxaya in kalgeeshan aan ku jirno dhammaadkeeda uu magaalada ardis ababaha kalfadhi uu ururka midowda afrika arrintaasi kala yeelan doono islamarkaana uu niibta ugu dhiibi doono dowladda xasan sheekh maxamuud ciidamada afrikaanka ee nabadgelinta u jooga gudaha soomaaliya ayaa u tooga'aya sida ay guud ahaanba geyiga soomaaliya uga xaymaran lahaayeen inta aan la gaadhin dabayaaqada gugan aan ku jirnay gaar ahaana kalgeesha 12aad ee gugan taasoo ay maraykanka iyo reer bogoxore maamulka xasan sheekh maxamuud ugu wargeliyeen inay kaga eeg tahay dhaqaalihii ay soomaaliya taaran jireen nabad ilaalintu haddaba ujeedka yeeritaanka xasan sheekh maxamuud ceelka ardis ababa ayaa daaran 3 qodob oo kale ahaa kow in loo sheego inaan la iska furin oo la iska faydin islamarkaana aan la haynin hadday shilin tahay hadday caantayn tahay hadday gamba tahay hadday bowlo tahay hadday isnuug tahay hadday dhexdalool tahay hadday isumuli tahay hadday beysteyn tahay iyo hadday beesa tahayba isla jeerkaadna ay gacan ka taageen meelihii hore soomaaliya taanooyinka nabad ilaalinta uga bixin jiray gaar ahaana maraykanka bugaanbugta beesha yurub iyo maraweynta carbeed oo ay halbacaad lagu lisay noqdeen dadaalo badan oo uu sameeyey ururka midowda afrika laba inay soomaaliya u qayshaarato sidii ay dalkeeda gacan buuxda ugu qabsan lahayd islamarkaana ay ugala wareegi lahayd meelaha ay ciidamada afrikaanka ay joogaan sidoo kalena uu goobahaasi uga dhici lahaa kala guur nabadgelya iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in wax layskaga ogaado arrintan kala guurka ay meesha kaga baxayaan dhammaanba duulka diirka madow ama ciidamada afrikaanka ah ee guyaashii ugu dambeeyey cawsanayay gudaha koonfurta soomaaliya taasoo ay lagama maarmaan tahay in lagu wargeliyo maamulka ka arrimiya ceelka camaryeynta haysa weliilkaad nagala socotaan waa taartiib iyo wararka iyaguna naga soo gaadhaya magaalada jigjiga ee xarunta maamulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in ceelkaasi ku sugan yihiin 6 xildhibaan oo ka soo cagalaabtay maamulka gacan kurimiska ee bariga gobolka sool xildhibaanada oo la hadlay warjiradada ayaa caddeeyay inay iskaga tageen ama ay ka xuubsiibteen maamulka magaciisa la yidhi SSC Faadumo islamarkaana ay daadiyeen hirkii iyo heeryadii ay u hayeen maamulka horudulba horjooga firdhiye waxay sheegeen inay arrintan keentay amase ay ka boqoolaan oo ay marada madaxa saaraan isla jeerkaadna ay u jalbaasiyaan cadceedu dhaca ka gadaal markii ay horjooga firdhiye iyo ku-xigeenkiisu ay la soo baxeen geda qarsoon oo aanay markii hore lahaan jirin waxay tibaaxeen in qofka yidhaahdaa sidaa ma aha gebi ahaanba afka lagaga boodayo amase la buquujinayo waxay tilmaameen in talada laga duway marinkii iyo miidaankii lagu heshiiyey maadaama oo ay ahaayeen raggii dhidibada u taagay waxa la dhaho waqooyi bari waxay sheegeen inay meeshu noqotay banqiyaame oo lagu xisaabinayo adiga oo taagan allaahuma labeeg amase sidii hooyadaa kugu dhashay waxay bitiyeen inaan laascaanood maamul ka jirin oo mareegi ka jirin oo dhulbahanta isku eryanayo waagii barya iyo gabalkii dhacaba oo ay isku dilaayaan oo isku hiifayaan oo isku haraamayaan oo ay leeyihiin warya haraggeedii nagaga celiya
waxay sheegeen inay laascaanood tahay meel qoomamo lagu nool yahay oo aanad habeenkii seexanaynin oo aanad il iyo baal isu keenaynin oo aad ka baqayso ifisa lagugu baktiyo oo wadnaha farta lagaga hayo inay gebi ahaanba isla kaa jiidhaan dhulbahante isyaryaraya ah amase madaxa oo lagu soo duubto. waxay sheegeen in laga werwerayo in bidaada laga helo duleedada goojacda sidii horeba u dhacday ama ugu dhacday raggii uu ka midka ahaa hebelkay bariis. xildhibaanadan ayaa u badnaa beelaha wersangeli kuwaasoo ay magacyadooda lagu sheegay xildhibaan makhdal siciid maxamuud, xildhibaan axmed caabi xasan, xildhibaan cabdisalaan cabdilaahi maxamed, xildhibaan sidiiq jaamac muuse iyo welibana xildhibaan axmed cali maxamed. dhinaca kale waxaa la arkayay magaaladii laascaanood oo uu ka taagan yahay salaq weedhaan, soomalhaad, haraad, jaynaf, solan, dayow, oon iyo dhama. waxaa la sheegaya in gaadhigii dhaqaaqaba laga daba cararaayo iyada oo laleeyahay qabtaay ka daba tagaay tiyo marka la guryo keenana dadka loogu halceliyo wuu baxsana, waa carara, waa orda, waa goosana, waa dhuumana, waa isdhiiba. wararka qosolka iyo maadale ee ka soo baxaya ceelka laascaanood ayaa damuuninaya inaan gaadiidka dagaalka loo ogolayn in lagu shubo wax ka badan 3 litir oo gaasta la fidhi khamiisa maadaama oo laga walaacsan yahay in la isu dhiibo dhinaca ciidamada qalabka sida ee Somaliland. si kastaba ha ahaatee markii laga soo faramuruxsaday ceelkii laascaanood waxa ay bilaabeen duulka qurjiile inay isla soo taagaan sidii geedaha garta loo soo golo joojin lahaa ciidanayaasha Somaliland ay ku qabiran ceelkaasi, taasi oo looga gol leeyahay in lagu qariyo fashilka baahsan ee soo food saaray wixii maamulka lagu sheegay. duulka baarlamaanku sheegay ceelka laascaanood ayaa ku kala qaybsamay arrintaasi kadib markii ay beelaha ugaadhiyaan isla soo galluubeen inaanay qorshaha u fadhiyin oo duulaan lagu yahay maxaabiista ku xidhan deegaamada Burco iyo Hargeysa oo u badan Nuur Axmed iyo Nalay Axmed. waxay ku qayliyeen inaanay sinaba maangal u ahayn maxaabiista Somaliland oo maxkamad la soo taago maadaama oo loo gol leeyahay maxaabiista ugaadhiyaan ee lagu soo qabtay dagaaladii ka dhacay duleedada magaalada Ceerigaabo. in la wada jirayba waxaa la sheegayaa in kulankaa lagu kala kacay iyadoo loo ballamay maalmo kale si arrintan la isku mari waayo looga niib gaadho. isaguna waxaa gabalgaabkii maanta isu soo dhiibay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Somaliland ee runduda duleedada deegaanka Qorlugud nin askari ah oo watay gaadhi nooha islamarkaana ka soo firxaday ceelka Buuhoodle iyo Balliga Shaxda. ninkan ayaa hore u sheegay inuu ahaa axadkii qabtay taliye Faysal Cabdi Bootaan oo ay ku qarwaan beelaha dhulbahante kuwaasi oo ku halaanhala anigu waxaan ahay ninkii gartay, anna waxaan ahay ninkii gaadhiga saaray, anna waxaan ahay ninkii bariidka u kariyey, anna waxaan ahay ninkii sawirka la galay, anna waxaan ahay ninkii jeelka geeyey, anna waxaan ahay kii muuqaalka ka duubay. qof bilaadan soo istaagay ugu soo riyan aha saasaan soo istaagay waxaan arkay ninkii noocaas inuu yahay dadna waxaan ku inaan Bootaan meedanayn ma hibiil Cabdi Ismaaciil baa leeyahay. waxaa la dheehanayay ciidamada Somaliland gaar ahaan guutada dhufsaday oo soo dhaweynaysa askarigan ka soo fididiimay deegaanka Buuhoodle isagoo ilaa xalayba ku sugnaa duleedada deegaanka Gocondhaale. soo dhawow waxaad ahayd Somaliland hadda Somaliland ruba tahay ciidaadi calankaadi dadkaagi wada joogtaa gacmo furan qalbi xaaran inta war ku soo dhaweynaa wararka ayaa intaa ku biirinaya in askarigan isu soo dhiibay loo handaabiyey taliska aagga bari ee deegaanka Og iyadoo lagu wareejiyey taliyaha aagga bari gaashaan la sare Cabdi Cabdulla Nuur Fanaxa. si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horreysay ee ciidamo ka soo goostay beelaha dhulbahante soo gaadhaan ama isu soo dhiibaan ciidamada qalabka sida ee Somaliland kuwaasi oo isu soo dabahaya isla jeerkaadna la moodo inuu arrinkoodu yahay habqankaagii hadba qaaryimi. waxaa weli sii socda dhismaha dabaqa labaad ee sarta masjid jaamaca macalin xirsi ee magaalada Caynaba qaybtiisa koowaad kaasi oo ay ka qayb qaadanayaan bulshada Soomaaliyeed ee wanaagga jecel islamarkaana hor Ilaahay ula baxaya wixii ay awoodaan ee ay ugu deeqayaan gurigan eebe oo aan cidna laga xigin ama si aan laga sheegan karaynin. sida aad la wada socotaan waxaa dhammaaday foolkii koowaad ee masaajidkan waxaana iminka la rabaa in laga bilaabo qaybtii koowaad ee dabaqa labaad oo u baahan in looga qayb qaato hor Ilaahay iyo habeen aakhiro iyadoo wax la sii dhiganayo maalinta dambaysa ee la qatan yahay ama se la qaawan yahay taasi oo ah dhalaarta eebe qur-aankiisa ku yidhi ama ku sheegay yowma laa yanfacu maalan walaa banuun ilaa man ata allaahu bilqalbi saliim. haddaba daawadee lambarada aad wax kula baxayso oo kuwa shaashada kaaga muuqda